amba laba arrimood laba mowduuc baan rabaa inaan ka hadalno kow waxa weeyaan waa socdaalka Ismaaciil Cumar Geelle Beritoole waa Arbacaan oo uu ku tagayo magaalada Xamar waxa weeyaan war Soomaalidii maanta u yeedha nimankii Soomaaliha ama dadkii Soomaaliya u yeedha Ismaaciil Cumar Geelle waxa horta maxaa ku radaa ay dah ku jirin oo maanta maxaa ku radaa marag doona in Ismaaciil Cumar Geelle geeski Afrika oo dhan xukumo waxaan Ethiopia Kenya Sudan iyo Eritrea hayn Soomaali meesha ay joogto oo dhan inuu gacanta ku hayo hadday noqoto Soomaaliya waqooyi iyo koonfur hadday noqoto Djibouti na waa meel yaro way ku yaraatay idaga ku dhow islaantiisi ugu tago badacada ku cabiyo meelaha garaabada ku cunbu kari isagu Djibouti waa ka tagay waayahay sad ogtihiin amba social media ga aad kala socotiin iyo dhulba waa la xiray hadda iyo dhulba waa la xiray ka daran ciyaal iskoolkii waa la fasaxay kuwii hoose kuwii dhexe kuwii jaamacadda ilaa dumarkii yaanyada iibinayay Beritoole ma shaqo tagaysiin baa leeyahay xafiisadii oo dhan waa la wada xiray barnaamijka Ilaahay eega warninkii maxaa ku raday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kubbu ahaa ونما كان موريانتا فيلا سوماليا قبسطay بلا شرفتا بلا كرامدا مانتا اسماعيل عمر جيله ورير جيبوتي oo dhan ay naceen Soomaali oo dhan ay naceen 900 kun oo qof bi iyo baad iyo wuxuu cad u sameyn waayay mooryaanta villa Soomaaliya gashay ma faantay cid iyo dhaq u xiraya waxa caynkaasa gaal iyo islaam banaceen adduunka Ilaahay waa talaga yaabiyahay hadda adduunka Ilaahay baruu baxaya wax martagaya baa leeyahay waayahay walaalayaal waad ka ogtihiino wax walba ma khadaba tagaan hadaba socdaalka uu u tagayo Ismaaciil Cumar Geelle magaalada Xamar waa maxay markan aqliyadeeda ka shaqeeysiin aqliyadeeda markan ka shaqeeyay laba arrimood baa iga soo baxay hada laba arrimood arrinka koobaad wax weeyaan odagii Mooriyaankii Xasan Sheekh shata sanna farmaajo la daba taagnaa ciidankii maxaa ku raay Eritrea lagu tababaryaa la iibsaday ciidankii dagaalka Ethiopia la galiyay maxaa waa sidana odagayda hayay badbaado qaran la baxay farmaajo kalladii laha Soomaali kalladii lahayn ma fahanti walaalayaal Allahumma salli ala Muhammad maxaa rabay horta xagga inaan ku sheego odayga horta ninkaas gacanta ku dhigay labada arrimood u tagayo waa odagii Xasan Sheekh loo dhanay siyaasadii baa lagu haystaa baarlamaanki baa ku kacsan Soomaali koonfur galbeed qoladii Cabdulcasiis laftar kaleeniya ku kacsan ninkii waa lagu kacsan yahay gudoomiye baarlamaanka ku kacsan inuu Cumar Daawad taqaatiino siyaasadda wuxuu ka yaqaanaa lacag la bixiyo laaluushi wax la kala maslaxi iyo intereskiisa markuu meesha isaga dan ugu jirto kolka ugu dablaasiya kolka sababtu ugu dablaasiniyo koobaad ugu hore waxayaan odagii Xasan Sheekh baa la haystaa oo dalkiiba dhameeyo nimana habar gadiir wadankii u wada dhiibay yaa lagu leeyahay dalkiiba waa la dhacay keesaskii waa faaruq dadkii waa bilaa bishaaro meel dhawato xuquuq badanay baa leeyahay shaqo oo qof bishaaro qaato soo shaqo tagin baa jirta wada waligeed ba taasi way jirtay barigii farmaajo way jirtay taasi maxaa keenay maxaa ku khasnadii dawladda waxba ku jirban nimankii habar gadiir loo oranayay meesha u dhiibay ilaa kuwii maxaa ku dhahday abaarta iyo kii Cabdishakuur warsamada aragtay meelaha abaarta iyo dadka abaarta haysta loo dhiibo laleeyahay taasi waa taa weeyaan Xasan Sheekh oo siyaasadii Soomaaliya lagu haysto kow iyo arinta labaad u tii wax weeyaan gabadhiisii haybaado Mooriyaankii Saadiq Joon uu guursay la socotaa saaniga hore nisi sheegnas 4 bilood ka hor baa nisi sheeg walaalayaal wax aliyaal wixii shirkado Djibouti ay ku lahaayeen reerka Harmuus degan 45 sano dad fadhiya wixii aliyaal xoolo iyo moora wixii aan lahayn oo dhan xalaashaday shirkado waxay lahaayeen Muqdisho maanta ku shubeen arinta labaad uu socdana waa halka gabadha uu dhalay baa office weyn amba bureau dadka reer Djibouti u yaqaanaan Soomaalidu office bay u yaqaanaan ayuu halka ay ka soo laga soo maxaa ku raada ay ka soo furaysaa labada arrimood horta ugu waaweyn Xasan Sheekh oo 8 bilood jooga oo durdaba siyaasadda ku fashilmay oo dhiiqo lagu hawlo jiray isaga original dhiiqa lagu hawlo jirtay iyo businesskiisii daantareegiisii iyo interestkiisii wixii maxaa ku raadayay uu kolkii horeba hawsha u galay waya kolka Soomaali waxa leena Soomaaliya miskiinkii farmaajo ku kibirteen xildhibaanadii Soomaaliya away farmaajo ku kibirteen miskiinka ay ma aragtay wixii wax cunayay wax dhacay khayr u buhay deekii waad ogeedeen Maxamed Roble loorne kii baahna Soomaalida u saartana Ismaaciil Cumar Geelle oo keenay oo meesha Ismaaciil Cumar Geelle markii daba gacanta ku qabsaday oo lacagtii umada reer Djibouti cunaha laga qabtay iyo dadkani reerkani haystaan
meel walba lacag buu saa u gelinayaa meel walba lacag buu saa ugu faraqayaa lacagtaasu saa wuxuu kala daadaadinayaa waa yahay farmaajo meeshu la maray wadi ogeedeen Soomaaliya waxaan leeyahay godka ay reeji wita ku dhaceen bal maanta ku dhacday shata sanne soo socotana mooryaanka inatiisa uu qaba ayuu meesha u qalqaalanay waa haduu noolaaday isagu afkiisuba ka sheegay ma noolaanaya buulibe laakiin taw uu wadaayo wax weeyaan mooryaan Sadiq John iyo haddana Xasan Sheekh inuu bedelo yoon waxaan kaloo ka arkay taas waa taa weeyaan barnaamijka labaad walaalo soo gal wax weeyaan mooryaankii daahir calasu ninka waa jaamacadteele inaan waa u hadlo aan birdaafa laakiin maanta baa daafacaya mooryaan baa soo doontay mooryaankii maxaan ku rahday in daahir calasu looranay maxaan ku rahday social media umada baadka ka qaaday kaar qabaha ee il alyaal cidba dhaaf weeyay in maca joog dhaaf weeyay gabadha miskiinada qabo cidba dhaaf weeyay yaa maanta intuu xagga soo fariistay codkii aan ogeyn anagu cidda samaysay codkii jaamacadteele laga sameeyo ma fahantay laga sameeyay sirdoonka Djibouti sameeyeen ay khadra samaysay iyo meeshii lagu sameeyay ogeyn iyo cidii samaysay ogeyn ayuu halka la soo fariisay wuxuu ku leeyahay sababta looga furay gabadha wasiirkii hore jaamac cilmi xukuumad taqaatine codkan baad subxaanaka ya cadiim war cidda ku soo dhibtaan ognahay naayro cidda ku soo dhibtaan ognahay waxan waa been iyo balaayo waxani sirdoonka Djibouti sameeyay waxaan wax loogu talagalay qorshe loogu talagalay jaamac cilmi xukuumad in karkaarka lagu dhaafiyo shaqadiisana looga qaado reerkiisa awlaadiisana looga qaado ujeedku waa intaas uu ahaaba maatan maadey ku soo dhibeen wadadku ma xishoodaan maadey ku soo dhibeen Soomaalidu u shid ku yiraahdo annaga Soomaalida xaga u sheegno wayna ogaan doonaan Soomaalidu waxana wax la sameeyay sirdoonka Djibouti sameeyay Ismaaciil Umar Geela sameeyay islaantiisa sameysay ma fahantay nacab si loo yiraahdo sababta gabadha ninka laga furayay waa maxay waa in la macneeyay ninkan inay damcaan baahayd ninkan inay ka cabsooniyeen baahayd ninkan in kaar qabaa oo haysaguba nin ay ka cabsoodeen buu ahaa jaamac cilmi xukuumad mooriyaano ma fahantay annaguna soo kaawaday qurbaha la keenay ma garanaysid ninka aad ugu warkiisa annagu ku siino dadkan harajaa fadhiya ninka ka baqay oo ka cabsooday inkasta iyaguna ugu soo dul shaqeeyeen halka waxay isdhaahdeen isweydiiyeen ay ka fikireen ninkan sideed aad u dhaafisaan reerka u dhaafisaan sideed dalka u dhaafisaan jirjirkiisi baa batay kursigii mooryaan daahir calaso u dhigayso ninkani waxa uu damcay kursigu eegay ana ku sheeg ninka waxa loo dilay ma taqaanta kursigu eegay Djibouti qof allayaal qof kursiga saa weegana waa la dilaa